السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب قيمة بدن مانتي مقال عصب مقال كنا مانتا وحين نكوب الله بينا كورس عصب كورسدا سوكو سابسن مايكروسوفت اكسل أي نكو قادنينا وحين نكسمين دونا مقالو بالله إلا يردمادا أما beginner to advance أي نكو قادنينا sidoo kale casharada waxaan soo gelin doonaa barta aynu ku leenahay YouTube channel. Sidoo kale waxaan soo gelin doonaa Facebook page. Sidoo kale casharada shorti ah ama iyagoo gaagaaban waxaan soo gelin doonaa halka aynu ku leenahay barteena TikTok ayaynu soo gelin doonaa. Isla socod wanaagsan. Sidee ayaa loo soo kiciyaa waxa loo yaqaano Microsoft Excel? Sidee ayaa loo soo kiciyaa siyaabo fara badan ilaa iyo afar qaabo shan qaabood ayaa loo soo kicin karaa, balse qaab ka mid ah ayaynu usoo kicinaynaa inaynu imaano halkan search boxka ah, halkan inaynu ku qorno Excel, halkan inaynu ku qorno kadibna waa ka halkaa kor ayuu inoogu soo baxaya kadibna click aan leenahay. waa kan waxaa inoo soo kacay Microsoft Excel ayaa inoo soo kacay. halkan waxaa loo yaqaanaa start screen ayaa loo yaqaanaa start screen ayaa loo yaqaanaa gudahaynu usii galno oo waxaynu ku dhufanaynaa halkan ay ku qoran tahay blank workbook. halkan ayaan ku dhufanaynaa. halkan markii aan ku dhufano wejigan ayuu ina siinayaa wejigan waxaa loo yaqaanaa worksheet ayaa loo yaqaanaa okay. inta aanu u gudagelin marka sharaxaada worksheet waxaynu ku qaadan doonaa marka casharkani ilaa iyo saddex shay ayaynu ku qaadanaynaa. ayaan ku qaadanaynaa kuwaasoo kale ah waxa loo yaqaano rows, column iyo cell ayaynu ku qaadanaynaa. row, column iyo cell ayaan ku qaadanaynaa. saddexdaas ayaan casharkeennan diiradda ugu saaraynaa. kow horta aan isweydiino rowyada MS Excelka imise ayay gaarayaan, imise row ayuu leeyahay MS Excelka. sidoo kale kolomyadiisana meeqa ayay gaarayaan, saliskiisana meeqa ayay gaarayaan. salka meel inoo dhig. salka waxaynu kasoo dhex saari doonaa rowga iyo columnka ayaan kasoo dhex saaraynaa. ugu horeyn aynu ku horumarno rowiska imise ayay gaarayaan. rowga MS Excelka uu leeyahay waxay gaarayaan 1,048,576 row ayay gaarayaan. 1,048,576 row ayay gaarayaan. sidee intaas ayay gaarayaan afka lagama rabe. sidee ayaynu ku ogaan karnaa intaas inay yihiin? waynu arkaynaa, waana idin tusi doonaa. sidoo kale waxaa jira waxa loo yaqaano columns ayaa jira. columnyadana waxay gaarayaan 16,384 column ayay gaarayaan. 16,384 column ayay gaarayaan. row muxuu yahay horta? row waxaa loo yaqaanaa kuwaana loo yaqaanaa row. numberskan saan u deganay ayaa loo yaqaanaa row. halka waa maarata xarfaha saan u deganayna loo yaqaano columns ayaa loo yaqaanaa. sidee ayaan ku ogaan karaa marka rowyada ee MS Excelka inta ay la eg yihiin? sidee ayaan ku ogaan karaa? okay, waxaan qabanaynaa control iyo falaarta hoose ujeeda. falaarta oo ah arrow down, falaarta hoose ayaan qabanaynaa. waa kan fiiri marka qaybtan aan ku zoom gareeyo. zoom aynu dhahno, aan soo dhaweyno. fiiri 1,048,576 kuwani waxaa loo yaqaanaa rows ayaa loo yaqaanaa. waa row. 1,048,576 row. okay, row waynu isla fahanay. columnkana isaguna waxaan isla qabanaynaa haddii aan rabno inaan ogaano columnka tiradiisa. control iyo right arrow ayaan isla qabanaynaa. falaarta midigta ayaan qabanaynaa. falaarta midigta markii aan qabanay xaraf ayaa inoo soo baxay meeshan. fiiri aan kusoo zoom gareeyo oo aan kusoo dhaweeyo. waxaa inoo soo baxay XFD. XFD waa xaraf dee inay tahay 16,384 column inay tahay. sideen ku ogaanaya? waxaan imaanaynaa halkan xarfaha, waxaan u bedelaynaa numbers aan u bedelaynaa. waxaan imaanaynaa halkan file ay ku qoran tahay, kadibna halkan waxaan ku dhufanaynaa more options. halkan markii aan ku dhufano waxaan kasii dooranaynaa options ayaan kasii dooranaynaa.
options markii aan ka doorano waxa inoo soo baxaya excel options kan ama gujigan ayaa inoo soo baxaya halkan waxa loo yaqaana excel options loo yaqaana ama general options ayaa loo yaqaana waxaan ku dhufanaynaa halkan ay ku qoran tahay formula qaacidooyinka halkaas markii aan ku dhufano formula waxaan tick saarayna ama waxaan dooranaynaa meeshan ay ku qoran tahay working with formula ugu horeeyo R1 C1 reference style halkaas ayaan tick saarayna meeshaas haddii tick aan saarno marka xarfihii waxaan rabnaa inay nambare isu bedelaan okay halkan ayaan tick saarayna kadibna okay ayaan leenahay u fiirso marka xarfihii hadda xfd waa kan waxay isku bedeleen 16384 column ay isku bedeleen okay waan aragnay row sidoo kale column waan aragnay waxaan u baahannahay marka inaan aragno ama inaan ogaano selka wuxuu ka sameysmi doonaa rowga iyo columnka oo lisku dhuftay ama darbi lagu sameeyay tusaale halkan ayaan ku xisaabinaynaa halkan aan imaano excelka qaacida wuxuu leeyahay markii calculation la sameynayo waxaa horumarinaysaa equal ayaa iska horumarinay kadib ayaad gelin doontaa calculationka u baahan tahay waxaan leenahay marka 1,048,576 lagu dhuftay calaamada ku dhufasho waxaan ku helaynaa shift iyo 8 ayaan ku helaynaa shift iyo 8 ayaan isla taabanaynaa maxaan ku dhufanaynaa 16,384 ayaan ku dhufanaynaa intan marka aan ku dhufano inter ayaan leenahay inta aynan dhihin waxaan rabnaa inuu inoo soo saaro jawaab ah 17,779,869,184 salis inuu soo saara rabnaa inter inoo dheh haye waa kan ma inoo soo saaray ama inoo soo saarin aan soo dhaweeyo feeri mujida 17 bilyan 1,799,869,184 salis waka marka selkan wuxuu ka imaaday isku dhufashada rowga iyo columnka markii la isku dhufto waxa soo baxayso tiradanna waa saliska sal isaga muxuu yahay sal waxa loo yaqaanaa godadkan aad u jeedid oo u eg buugga xisaabta oo kale godadkana waxaa loo yaqaanaa salis ayaa loo yaqaanaa waana kala bayrka ama isjarka rowga iyo columnka rowga iyo columnka marka ay isdhaafaan ayaa waxaa sameysmaya godkaas ayaana waxaa loo yaqaanaa sal ayaa loo yaqaanaa casharkeenii koowaad ee ku saabsanaa hordhaca Microsoft Excel halkaas ayuu inoogu eg yahay sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo saar sidoo kale Facebook page-kana follow inoo soo dheh wixii faali iyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faalooyinka mahadsanidin